magacaygu waa Saciid Maxamed Rooble. haddii aan kaaga hadlo ciyaarahan waxaan kusoo abaabulay ama nagu dhiirigeliyey in la helo jiil soo koraya kubaddooda ay ku salaysan tahay kubad nadiif loo ciyaaraya sida systemka adduunka laga ciyaaro kasoo bilaabaan. waxaan u bilownay qaabka garoonka oo ah cabirkiisa oo konton ah si kubaddooda ay u noqoto kubad nadiif ah. waxaan soo qabanay dhalinyaro ka kooban da'dooda iyo hooseysa ayaan u qabanay ciyaarahan. aniga iyo dhalinyaro badan ayaan isku dhiirigelinay inaan bilowno si beritoole loo helo dhalinyaro nadiif ah la maamuli karo degmada wax tari karo kubadda cagtana wax badan ka fahamsan oo la xukumi karo la maamuli karo ma garatay. si wanaagsan bal ciyaalkan hadda aad soo qaban qaabiseen imise koox ay ka kooban yihiin? bismillahi raxmaani raxiim. waxay ka kooban yihiin hadda kooxaha waxay ka kooban yihiin 9 kooxood ayaan u qabanay aan ku bilownay. waa bilow hadduu ilaahay yaraaho inay kasii badan doonaan aad u badan doonaan. waxay ka kooban yihiin 9 kooxood. 9 kooxood waa dhalinyaro da'doodu ay tahay 17 jir 18 jir 15 jir 16 jir iskugu jiraan. midda laba waxaan samayn doonaa anigu waxaan ahay gudoomiyaha xilka tayo ahna macallin xulka oo macallin tababaro nasiib tababara kooxaha waxaan siin doonaa inaan kasii xulno aan si waxaan u samayno tababaro aan u samayno si u noqdaan dad dhammaystiran oo laga soo dhammaystiray dhan walba beritoolana ay u noqdaan dadkii matali lahaa degmadan khaasatan gobolka ahaan haddii la yiraahdo. marka sidaasaan ugu dhiirigelisay dad badan oo odayaal ayaan la tashanay arrintan nagu dhiirigeliyey inaan samayno. marka alxamdulillahi maanta waa noo bilaabatay anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan aan idaacadda asal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. idaacadda asal waa mar walba waxay u joogtaa sidii u horumarin lahayd bulshada. aad iyo aad aan u hambalyeynaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sidaa ooma magarata. maadaama ciyaalkii laisku soo ururiyey ilaa 9 kooxoodna aad sheegteen in halkan aad ugu qabanaysaan waxaad ugu magac darteen sare u qaadida jiilka soo koraya ee degmada Jowhar. ma jirtaa cid idinka gacan siinaysa marka ay noqoto haddii koob aad dhigaysaan iyo haddii kaleba cid idinku gacan siinaysa barnaamijkan dhalinyarada aad markaa kusii dhiirigelinaysaan? maya horta wax hadda gacan naga siinaya ama hay-ad amaba hebel aan leenahay ma jiro. waa iskaa wax u qabso annaga baloodeena waa kubadda cagta inaan noolayno khaasatan degmadan inaan laga helo waxaan ugu dhiirigeliyey waa degmo walbo ama gobol walbo oo dalka ka mid ah waxay leeyihiin jiil hoos ka soo bilaabo kubadda cagta. muqdisho ciyaarahan oo kale laga ciyaaraa dhalinyaro fara badanaa ciyaarto si degmadeena maanta loo helo jiil beritoole wax tara ayaa nagu dhiirisay. cidna garab nagu siisayna ma laha. annaga dhalinyaro ahaan oo aniga aan gudoomiye u ahay ayaa garab annaga le iska siinay annagaa wax iska qaadnay annagaa aruurinay annagaa keenay hawshan dhan annagaa fulinay maanta alxamdulilaahi. waxaa kaloo oo garab nagu siiyey odayaasha isboortigii hore degmadan u ciyaari jiray dadkii oo waaweynaa diin jimcaale nin la yiraahdo abwaadir shacaale nin la yiraahdo xasan mooye nin la yiraahdo dhalinyaradaas ayaa garab naga siiyey. inkastoo guriga aniga ahaan dad ay ila kooban yihiin in maxamed cabdu nin la yiraahdo maxamed yaq saalax asad nin la yiraahdo axmed dey nin la yiraahdo. marka intaasoo dhalinyaro isku tagtay fikradda anaa keenay in la helo beritoole dad degmadan matala jiil soo baxo oo wax tara dad la maamuli karo. waxaan ognahay in isboortiga degmadan laga ciyaaro uu noqday mid aad iyo aad isqa qabsi u badan. si beri isqa qabsiga loogu baxo dad la hogaamin kara loo helo ayaan arrintan u samaynay. annaga cidna kuma maagayno ani fikrad ahaan cidnana xilkooda kuma abaaranayno qofna ku dulmimayno. waxaan u samaynay jiilkan yar da'dooda 17 14 jirada aan u samayno maalmaha aan kasii xulno weli ciyaartooy si degmada loo helo ciyaartooy fiican. intaasaan ugu dhiirigelisay mana jiraan oo cid annaga aan leenahay xilkooda aan boobayno amaba aan beegsanayno. intaasoo dhan ma jiraan. waa waxaan iskaa wax ku qabso waaye isboortiga sidiisa marnaan waa cid wax ku hesho ahaan isboorti wax ku hela ma jiraan. waxbaa nooga baxa mooye waxba kuma helno waa hobbigeeni waa jacaylkeeni
sida aan dareemayo degmooyinka kale ee gobolkan uu ka kooban yahay iyaguna maxaad ugu baaqaysaa والله horta barnaamijkan waa barnaamijka kaliya ee nooga helo dhowr siyaabood laga helaa waxaa laga helaa in diyaarsan albeeta leh jid ahaan diyaarsan adaab ahaan diyaarsan waa mid ugu muhiimsan annaga aan degmo ahaan waa soo gaay adaabta ayaa aad ugu dhiman dhalinyaradan daada yar garsoorada yeelanay aan sameynay waxaan sameynay sharciga ku sameynay haddii leh waxaa laga soo baxaa dad yacni nadiif ah oo diyaarsan ka soo baxa midda labaad degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay annaga degmadan ahaan waa bilow waaye kastoo dad naga horreeyeen ay jiraan laakiin ay qaab kale mini football ay yihiin annaga mini football ma yihiin waxaan nahay tayo football waxaan u sameynay in yacni isdhexgal bulsho fiican la helo dad biritoole wax tari kara la helo maadaama wixii isboortigii hore uu socon waayey dadka waaweyn kooxihii waaweynaa diraca ama madeerbiyadii degmada sida caadiga kubadda cagta ciyaari jiray wax badan ay ka socon waayeen si yacni maadaama ilaahay nafta ninka uu gaarsiiyo sanooyinka soo socdo dad nadiif ah oo dad dhammaystiran dhan walba ka dhammaystiran la maamuli karo wax walba maqlaya in loo helo ayaa lagu dhiirigelisay alxamdulilah fikradaasna anaa lahaa dad badan aan garab igu siiyey dadka garabka igu siiyey aad bay u mahadsan yihiin hawshii waa bilaabatay maanta sidaad arkaysaan alxamdulilah way socotaa waxaan jeclahay ilaahay ka baryaynaa inay si nadiif noogu dhammaato sidaan hore kuugu sheeganay annaga cidna kuma maagayno cidna xilkooda kuma boobayno waxaan u sameynay jacayl isboorti iyo biritoole sida loo heli lahaa dhalinyaro u taagan nadiif ah maskaxdooda jirkooda dawlad aan lahayn oo nadiif ah jecel maskaxiyana dhisan jiriyan dhisan diyaarna u ah wax walba oo la fara marka intaasaan ugu dhiirigelisay alxamdulilah wax walba bilowgeena waaye waan la gaari doonaa insha allahu tacaala maanta maalin ahayn oo hadalkaygaan uu rumoobi doono ilaahay waa dhici xaggiisa waxba kama ahan marka waan mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantihiin mustaqbalkiina aad waxaan ugu dhiirigelin lahaa in isboortiga noolaysaan wax walba horta bulshada waxa wadi karo waa midiyihiinna haddii aad mar walba isboortiga degmada aad ka hadashaan oo yani qaabka wixii dhaca aad haysaan alxamdulilah aad iyo aad aan u hormaraynaa waana mahadsantihiin ismaan cabdalla ahaan aadaan kugu hamalaynaa idaacadda sidoo kale waan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu